waa ninkii ugu hantida badnaa abid ee soo mara adduunka. Hanti uusan aqligu bila'aadamka malaysan karin ayuu Alle ku galaday, heer uu gaaray in furayaasha khasnadihiisa culays daraaddood ay qaadaan 70 nin oo xoog waaweyn. Wixii qaraabo ahaayeen Nebi Muuse wuxuu ka mid ahaa dadkii ugu cibaadada badnaa reer Bani Israa'iil, heer uu gaaray inuu 40 sano god u galo si uu Ilaahay u caabudo, adduunkana ugu dheeraado. Ka hor inta uusan Alle siin hanti iyo adduunyo uu aqligu bila'aadamku malaysan karin, taasi oo ka dhigtay mid ka fogaada caabudidda Alle, kuna kibray adduunka ilaa ugu dambeyn dhulka lala jaray isaga iyo hantidiisaba. Qaaruun wuxuu ka mid ahaa dadkii raacsanaa Nebi Muuse, wuxuuna ahaa kooda ugu cibaadada badan. Wuxuu gaaray heer uu god u galo si uu uga dheeraado adduunka, isaga oo godkaasi ku jiray 40 sano oo uu Ilaahay caabudayay. Ibliis ayaa doonay inuu fasahaadiyo, laakiin waddo kasta oo uu marayba wuu awoodi waayey inuu diintiisa ka fasahaadiyo, ilaa uu dambeyn iska soo dhigay sida qof oo kale, ugana yimid Qaaruun godkii uu ku jiray. Wuxuuna u sheegay inuu doonayo inuu Alle la caabudo, godkana kula jiro. Qaaruun ayaa soo dhaweeyay, wuxuuna ahaa Ibliis mid godkaasi ku cibaadaysta si uu u fasahaadiyo Qaaruun. Markii uu muddo kula jiray godkii, iskana dhigayay qof Alle ka cabsi badan, ayuu doonay inuu tartiib tartiib u fasahaadiyo Qaaruun. Wuxuu ku yiri, ka bixi mayno godkeenan wax kasta oo dhaca, xitaa haddii aynu cunto u baahanno ama laynagu yeero inaan jannaaso ka qayb galno, si aysan dadku cibaadadeena inooga mashquulin. Qaaruun ayaa oggolaaday, waxayna reerkiisu cuntada ugu keeni jireen godkiisa. Wixii uu muddo halkaas cunto loogu keenaba oo aysan Qaaruun iyo dadku is arkin, Ibliis ayaa Qaaruun ku yiri, dadkii waxaynu ku noqonnay culays, si aynu culayska ugu dulqaadno oo aan laynoo dhibsan. Aynu hal maalin bannaanka u baxno oo soo shaqaysanno, maalmaha kale ee isbuuca aynu Alle caabudno. Qaaruun ayaa oggolaaday. Waxay muddo sidaasi ahaadaanba oo ay hal maalin soo shaqaystaan, inta kalena ay godkooda ku jiraan. Mar kale Ibliis ayaa ku yiri Qaaruun, cidna waxba kuma sadaqaysanno oo dadka ma caawinno. Haddii aynu caawin lahayna maba haysano dhaqaale inagu filan oo aynu wax ku caawinno. Haddaba si aynu u noqonno kuwo wax sadaqaysta, aynu maalin shaqaysanno, maalinna Ilaahay caabudno. Qaaruun ayaa ku qancay aragtidan, wuxuuna markaan bilaabay inuu maalin shaqeeyo, maalinna Ilaahay caabudo. Ibliis ayaa dareemay inuu halkii uu la rabay Qaaruun uu keenay, kadibna wuu isaga tegay.